waxaa lagu naanaysaa inuu yahay saddexagloodka shaydaanka. هذا مثلث برمودا. diyaarado, maraakiib iyo dad caan ah oo dul maray ayaa ilaa maanta la la'yahay meel ay jaaniga cirib dhigeen. waa saddexaglood ku dhex yaala xeebta, kaasi oo ka dhigay adduunkoo dhan mid marka magaciisa la maqlo laga argagaxo. waxaynu u jeednaa saddexagloodka Bermuda ama saddexagloodka cabsida. magaceedu wuxuu ku lifaaqmay dhacdooyin argagax ku reebay qof walboo daalacday ama dhegihiisu maqleen albaabo daahsoon oo samada ku tolan noolayaal baaxad waaweyn oo wixii soo agmaraba adduunka ka qarinaya, iyo musiibooyin daahsoon oo ilaa maanta loo la'yahay fasiraad ayaa laga soo wariyaa. saddexagloodkan loo yaqaano Bermuda waxaa laga alifay khuraafaadyo ay ugu weyn tahay in saddexagloodkan uu yahay saldhig shaydaan, kaasi oo afduubanaya qof walba oo u soo dhowaada saldhigiisa. muuqaalkeenna maanta daawadayaal waxaynu ku lafaguraynaa xaqiiqda saddexagloodkan Bermuda, inagoo dib u baari doonna dhammaan dhigaalada laga qoray ama laga yiri goobtan. waxaynuna abbaari doonnaa jawaabta su'aasha odhanaysa ma halis baa in la dul maro ama laga agdhowaado saddexagloodka Bermuda. halkani waa Waaberi Media, magacayguna waa Cabdiraxmaan Cumar. ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. ugu horeyn intaynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin daawade haddii aadan weli ka mid noqon bahweynta nagu taxan inaad subscribe dhahdid channelkan, sidoo kalena haddii uu ku qanciyo muuqaalkan ha ilaawin inaad leeg saartid. mahadsanid. aan u galno muuqaalkeenna maanta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. saddexagloodka Bermuda marka aynu maqalno magacan waxa ugu horeeya ee maskaxdeena ku soo dhacaya ayaa noqonaysa inay tahay goob aysan diyaaraduhu dul marin, sidoo kalena maraakiibtu ka ag fogaato. waxaynuna badankeen aaminsannahay inay tahay goob shaydaan oo wixii u dhowaadaba uu qarsoomayo. haddii aad sidan aaminsan tahay daawade, waan ka xumahay inaan ku dhaho khuraafaad baad aaminsan tahay. intaadan iska xirin ama iska joojin muuqaalka, waxaan gelayaa Google, waxaanu ku qorayaa flightradar24.com. websaytekan waxaynu si toosa uga arki karaynaa dhammaan diyaaradaha xilligan dul maraya waddan walba oo ku yaala adduunka. waxaynu ku qoraynaa qaybta wax laga baaro magaca Bermuda. marka aynu ku qorno waxaynu ugu horeyn calaamadaynaynaa saddexagloodka caanka ah ee loo yaqaano Bermuda, kaasi oo isku xira xeebta u dhaxaysa gobolka Florida ee dalka Maraykanka, jasiiradaha Bermuda iyo sidoo kale jasiiradaha Puerto Rico. haddaba haddii aynu isla fahnay saddexagloodkan saddexda jiho ee isku xiro, bal aynu haddaba milicsanno inta diyaaradood ee dul maraya xilligan aan duubayo muuqaalkan. haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah sidee goob ay halis tahay in diyaaraduhu ay dul maraan sida badankeennu aynu aaminsannahay ay macquul u tahay in waxaanu diyaarada ah ay ugu dhiiradaan ku dul safriddeeda. se maxay u qarsoomi waayeen oo daqiiqad walba ay diyaaradahan tirada weyn u dul marayaan goobtan halista ah? laba saddexaglood oo ku yaala badda ayaa ilaa xilligan jiha wareeriyey adduunka oo dhan, lagana soo wariyaa dhacdooyin iyo dhigaallo badankooda u muuqda kuwo argagax badan oo ah diyaarado iyo maraakiib qarsoomay, kuwaasoo ilaa iyo maanta meel ay jaaniya cirib dhigeen la waayey. labadan goobood ayaa kala ah saddexagloodka Bermuda iyo sidoo kale saddexagloodka Formosa oo isaguna ku yaala xeebaha u dhow dalka Jabaan. muuqaalkeennan maanta waxaynu ka hadlaynaa oo aynu lafaguraynaa saddexagloodka caanka ah ee Bermuda oo ay dhif iyo naadir tahay inuu jiro qof aan maqlin. saddexagloodka Bermuda ayaa dhaca inta u dhaxaysa xeebaha Florida, wuxuuna ka kooban yahay 3 goobood oo marka la isku xiro noqonaysa sida saddexaglood oo kale. goobahan ayaa kala ah goobta uu ka bilowdo ee magaalada Miami ee dhacda gobolka Florida, jasiiradaha Bermuda iyo jasiiradaha Puerto Rico. waxaana lagu qiyaasaa ballaca saddexagloodkan ku dhowaad 1 milyan oo kiiloomitir oo isku weeran. waxaana loogu bixiyey magacan iyada oo loogu magac daray jasiiradaha Bermuda oo ah jasiirado ka kooban 300 jasiiradood oo 30 ka mid ah la degan yahay. sanadkii 1492 dhulmarihii caanka ahaa ee aynu taariikhdiisa ku qaadanay iskuulada sare ee Christopher Columbus ee loo tiriyo inuu ahaa dhulmarihii soo iktishaafay labada qaaradood ee Maraykanka, ayaa waxaa dhacday in isaga oo sidii caadadiisa ahayd ku jira safar badeed markii uu marayay goob u dhow saddexagloodka aynu haatan ka hadlayno ee Bermuda, uu arkay dhacdo la yaab ku noqotay aaladda loo yaqaano jiheeyaha oo ay badanaa badmaaxiyayaashu qaataan oo ku hagta jihada ay rabaan inay aadaan. ayuu hal mar arkay iyada oo si xawaare sare ah isku rogaysa. sida caadada ah, aaladdan
waxay u dhaqaaqdaa si tartiib ah, badanaana isma dhaqaajiso ilaa uu qofku dhaqaaqo ama dhinac kale u jeesto. Columbus waxba ahmiyad ma siisin dhacdadan layaabka ku noqotay, wuxuuna sii watay safarkiisii. 400 sano kadib dhacdadan, waxaa la ogaaday in saddex cagloodkan uu ka duwan yahay badda inteeda kale. xilligaasi waxay ku beegnayd sanadkii 1840. haddaba maxaa dhacay xilligan oo adduunka ka dhigay mid il gaar ah ku eega saddex cagloodkan? markab la oran jiray Rosalie oo laga lahaa dalka Faransiiska ayaa hal mar si gadiisa u qarsoomay meel uu jaaniya cirib dhigayna la waayay. wuxuuna marayay markii ugu dambeysay saddex cagloodka Bermuda. kadib bilo baadigoob lagu hayay markabkan, waxaa laga soo helay goob ka fog xeebaha Bermuda oo uu marayay markii ugu dambeysay. arrinta layaabka noqotay ayaa ah in markii markabkii la baaray laga waayay hal qof dadkii la socday markabka, iyagoo nool iyo xitaa meydkoodaba. waxaana loo tegay markabka oo aysan wax dhaqaaqa ku sugnayn. arrintani oo layaab noqotay kana dhigtay dadkii kuwa isweydiiya. waxaa la tegay dadkii ku sugnaa markabkan. sidoo kale sanadkii 1872 waxaa mar kale qarsoomay markab la oran jiray Marie Celeste. markabkan ayaa isagana bilo kadib baadigoobkiisa la helay. isagana waxaa loo tegay isaga oo aan qof dhaqaaqa ku dhex sugnayn. ilaa maantana ma jirto cid garanaysa dadkii la socday markabkaasi iyo badmaaxiyayaashii waday meesha ay jaaniya cirib dhigeen. intaasi kuma joogsan, balse mar kale intii uu socday dagaalkii koobaad ee adduunka, waxaa dhacday in markab dagaal oo ah noocyada maraakiib ee aadka u waaweyn oo xambaarsanaa magaca USS Cyclops uu markii uu marayay saddex cagloodkan sida maraakiibtii hore oo kale uu qarsoomay. markabkan iyo shaqaalihii saarnaa oo tiradooda lagu sheegay 300 oo howlwadeen ayaa meel ay jaaniya cirib dhigeen la waayay. arrintani oo ka dhigtay dhacdadii ugu weyneed ee uu hal mar Maraykanku ku waayo tiro intaasi la eg badda Bermuda gudaheeda. adduunku wuxuu bilaabay inuu si dhab ah ugu fiirsado dhacdooyinka ka dhacaya xeebtan Bermuda korkeeda sanadkii 1945 kadib dhacdadii caanka noqotay ee ay ku qarsoomeen diyaaradihii xambaarsanaa sumadda safar ee 19. 5 diyaaradood oo ah nooca qaada madaafiicda oo uu lahaa dalka Maraykanku ayaa hal mar si wada jir ah meel ay jaaniya cirib dhigeen la waayay. diyaaradahan ayaa ku jiray tababar, waxaana sidoo kale la waayay diyaarad loo soo diray si ay u soo baadigoobto meesha ay mareen. laakiin 5 diyaaradood iyo diyaaraddaasi baadigoobkooda loo soo diray ilaa maanta ma jiro qof sheegi kara meeshii ay mareen. waxayna si gebi ahaan uga qarsoomeen adduunka, diyaaradihii iyo duuliyayaashii watayba. intaasi ma ahan dhacdooyinka ilaa maanta laga soo wariyey saddex cagloodka Bermuda, balse aad bay u tiro badan yihiin. haddii aynu isdhahno hal muuqaal ku soo koobana, kuma soo koobi karayno. waxayna ka wada siman yihiin dhacdooyinkan in dhammaantood noolayaal iyo agabba meel ay maraan la waayayo. haddaba waxaa laga yaabaa daawade inaad isweydiinaysid maxaa waxaani oo dhan sababaya, se maxaa qarinaya wixii dulmara meeshan? si haddii ay sidan tahay, maxaynu bilowgii muuqaalkan u soo sheegnay in saddex cagloodka Bermuda diyaaraduhu ay dulmari karaan? ilaa hadda baaritaano lagu sameeyey cilada ka jirta saddex cagloodkan ee ka dhigaysa waxyaabaha dulmara qaybtood sida doomaha iyo diyaaradaha kuwa qarsooma, ayay khubaradii samaysay baaritaanada ku heleen 2 natiijo. natiijada koobaad ayaa ah sida uu sheegay website-kan hortiina ka muuqda oo ah website Ruush ah, in koox baarayaal ah oo baaritaan ku samaysay saddex cagloodka Bermuda ay soo ogaadeen in badda uu dhaco saddex cagloodkan ay gunteeda hoose ku sugan yihiin dhismayaal u eg ahraamta Masar oo kale, kuwaasi oo markii ay ka soo qaadeen tijaabooyin yaryar oo ay baaritaan ku sameeyaan ku ogaadeen in la yagleelay 200,000 sano ka hor. waxayna ogaadeen in ku dhowaad 50,000 sano ka hor ay biyaha quuseen oo ay gaareen salka hoose ee saddex cagloodkan. sidoo kalena waxay ogaadeen in gunta hoose ee baddan ay leedahay godad waaweyn oo ay ka soo baxayaan gaaska loo yaqaano miisaanta. waxayna sheegeen khubaradan in xumbooyinka ka soo baxaya gaastan miisaanta loo yaqaano ay awood u leeyihiin in markab weyn ay badda quusiyaan, maadaama ay yaraynayso gaastan xaddiga biyaha una beddelayso biyaha kuwo aad u karkaraya oo kulul, taasoo yaraynaysa xaddigooda. haddii aanu raacno baaritaanada khubaradan, waxaa imaanaysa su'aal ah maraakiibta garannay, laakiin maxaa ka galay diyaaradaha oo ay u qarsoomayaan marka ay marayaan saddex cagloodkan? aynu u nimaano sababta labaad ee lagu sababeeyo qarsoomidda qaybo ka mid ah diyaaradaha soo dulmara baddan. sawirro laga soo qaaday samada sare ee badda Bermuda oo ay baahiyeen warbaahiyeyaashu ayaa ku tusaysa in daruuraha ku wareegsan saddex cagloodkan ay yihiin sababta ka dambaysa qarsoomidda diyaaradahan. daruurahan ayaa hal mar isku beddela hawo aad u xoog badan oo wax walba oo dul maraya ama xitaa hoos maraya awood u yeesha inay si gebi ahaan u burburiyaan. isku soo duuduubo daawade, goobtan ayaa laga yiri oraahyo iyo dhacdooyin aad u badan,
taasoo ku sawirtay maskaxda in badan oo inaga mid ah inay tahay goob shaydaan oo ay halis tahay u dhowaanshiyaheedu. laakiin xaqiiqooyinka ayaa odhanaya oraahyo intaasi ka duwan, wuxuuna la mid yahay saddexagloodka Bermuda marka laga yimaado buunbuuninta ay warbaahiyaashu buunbuuniyaan dhulalka kale ee caadiga ah. sida ay halkaasi shilalku uga dhacaan ayay caadi u tahay in adduunka intiisa kale uu uga dhaco. badiya bariba dadka qarsoomaya ee meelay jaaniya cirib dhigeen lala yahayna waxaa loo aaneeyaa in qarsoomideeda ay ka dambeeyaan burcadbadeed, maadaama goobahaasi ay xilliyadii hore burcadbadeedu ka ugaarsan jireen. dabcan waxaan ka hadlaynaa xilliyadii hore ee ay burcadbadeedu ahayd wax adduunkao dhan ka jira. maantana sida ay diyaaradaha iyo maraakiibtu isaga kala gooshaan adduunka intiisa kale ayay u dulmaraan uguna safraan saddexagloodka Bermuda. intaasi ayaynu ku soo koobaynaa muuqaalkeenna maanta. haddii uu ku qanciyey muuqaalku, ha ilaawin inaad leeg saartid lana wadaagtid asxaabtaada. sidoo kalena noogu reeb daawade kommentiyada hoose ee muuqaalkan waxa aad ka aaminsan tahay saddexagloodkan haddii aad horay u maqashay. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.